gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay doorashada isagoo wareysi khaas ah siinayay telefishinka caalamiga ee Somali Channel. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ugu baaqay dadweynaha reer Somaliland inay leelayaan xasiloonida iyo nabadgelyada, waxaana uu si gaar ah ula hadlay taageerayaashiisa xisbiga ummadda oo sheegay inay maalinta doorashada oo ku beegan 28 bishan ay si xoog leh ugu soo baxaan gobolada iyo degmooyinka goobaha codbixinta. doorashadan ololihii wuu dhamaaday, waxaa berri ma haysaa dambe loo dareerayaa maalinta Arbacada goobihii codbixinta. waa maalin weyn, waayo waa maalin qarankaagu, dadkaaga iyo dalkaagu hiilkaaga baahan yihiin. waa maalin codkaaga ay ka rabaan in si miisaan garowshiyo leh xaaladda dalka ka taagan oo ku cabiraya ay ka sugayaan inaad ugu hiilisid codkaaga halka saxda. dadweynaha reer Somaliland gaar ahaan taageerayaasha ururka ummadda meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay doorashada u soo baxaan si nabadgelyo ah, ilaaliyaan xasiloonida iyo wadajirka. doorashada haddii ay nabadgelyadeena wax yeelayso, faa'iidadeeda waxaa ka xun khasaaraha faraha badan ee ka dhalan kara. dhammaanteen waxaan waajib nagu ah oo mas'uul iyo damiirba nagu ah in waxaan haysano ku faraadeegno aanan maaragtay dhaawicin ee ah nabadgelyada. geesta kale Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa wuxuu ka hadlay ciidamada ammaanka iyo dadweynuhu say wada shaqeynayaan, waxaana uu yiri ciidamada amniga oo waajibaadkooda gudanaya ee aan ognahay duruufahooda nololeed, ogaada waxa loo socdaayo waa hayaan sidii looga bixi lahaa maaragtay dib u dhac iyo nolol adag. marka dadweynuhu waa dadweynihiinii, ma kala ah xisbiyo. uniform shaarkaad qabtaan waa astaan midnimo. marka ka fogaada inaad ku milantaan siyaasadda, inaad ku milantaan xisbi gaara, inaad ku milantaan koox gaara ama xukuumadda haata ama cid kale ha ahaatee. hadalka gudoomiyaha ururka ummadda ayaa ku soo beegmaya xilli ay maalintii shalay ahayd ay soo gabagaboobay ololaha doorashooyinka oo muddo 28 maalmood ka socday Somaliland. waxaana gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda ugu baaqay dadweynaha reer Somaliland inay dhinaca nabadda ka shaqeeyaan, maalinta codbixintana si weyn ugu soo baxaan. waa Axmed Maxamed Jaamac, Somali Channel, Hargeysa.